Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa asxaabta qaaliga ah ee meel kastood ka joogtaan dunida daafaheeda. Asxaabay fideogeena wuxuu ku saabsan yahay caawa kareem aad u wanaagsan oo wejiga kaaga dhigaya qurux oo nafaqo gelinaya oo wuxuu ka baabi'inayaa duuduubka. Muxuu kaloo sameynaya uu ku cadeynaya subxaanallah, nafaqana uu ku gelinaya. waa wax natural asaga dhan. runtii waqti dheer ayuu iga qaatay intaan soo diyaarinayay. waan soo tijaabiyey familigeyga, asxaabteydaan kusoo tijaabiyey. waxaan aan idiin soo dhigayo, waxaan isaga kiin soo dhigayo waa wax waqti dheer aan kusoo bixiyey oo macnaha aan wax dhibaataa kuu keenayn. waa wax natural. ilmaha yar baa marsan kara, qofka weyn baa marsan kara, nimankaa marsan kara. waa kareem aad iyo aad u wanaagsan. asxaabay ka faa'iideysta. asxaabay ugu horeyntii videoga like dhahay, haddaad nagu cusub tahay subscribe dhe, all kasii dooro say kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub oo fawaaidka badan oo aan soo dhigno. sii share garee si walaalka uga faa'iido. haddaba waxaa la yidhi hadal badan haruun ma buuxiye, kusoo dhawow kareemkii asaga oo practical sidii loo diyaariyey. kan waxaa iigu jira hal qaado oo qaxwe ah. kanna waxaa waaye Nescafe. kusaan noqdaba insha allah usas Nescafegi iyo qaxwii iyo malabkii markay saa isku noqdaan qaado malabaan ku darnay. waxaan marinaya wejiga aayar baa saasa ugu dardiidiyay, saas aayar si murabbac afar geesa aayar saasa u marinay. bas waxaa u daynay adiga 5 daqiiqo camal. kadib waad ka biyo raacinaysaa. marka kadib waxaan marinaynaa wuxuu sameynayaa marka kan wuxuu ku sameynayaa wejiga wuxuu ka dilay wuxuu ka soo fujinayaa waxaa jira qofka unugyo dhintay ayaa jira oo jirka dul saaran. unugyada dhintay ayuu ka soo jajabinayaa, wejiga uu nadiifinayaa, haddana daldaloolada wejiga ayuu furayaa. okay hadaba markaad kan wejigii baad marisay muddo 5 daqiiqo baad u daysay ama 7 daqiiqo waad nadiifisay, waad biyo raacisay. waxaad soo qaadanaysaa hadaa haysatid kan waxaa la dhahaa biyaha mayl wardi ayaa la dhahaa. hadaa haysatid suuf baa in yar ku dhibcinaya wejigaa marmarinaya, haddaad haysan dhib malahan. okay hadda waxaan diyaarinaynaa kareemkii wejiga cadeynayay, nafaqeynayay oo natural ah. waxyaabahan asxaabay waa wax natural ah aan soo tijaabiyey. halkan waxaa iigu jira 3 waxyaabood oo aan isku soo shiiday. waxaan ka qaadanayaa qaado weyn. 3 waxyaabood waxay isugu jiraan waxa weeye xabatul baraka iyo waxaan isku shiiday iyo basuru kitaan iyo waxaa loo yaqaano xabatul rashaad. awalan xabatul baraka xadiis baa lagu sheegay oo sunnada rasuulka ayay ka sugnaatay. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay xabatu suudaa xanuun kasta dawo bay u tahay wixii laga reebo mowdka. wejiga way cadeysaa, findoobka way ka baabi'isaa iyo nabraha. sidoo kale waa daawo. timaha maasha allah way aad bay ugu wanaagsan tahay. waxaa kaloo ku jirta waxa loo yaqaano basuri waxa la dhaho xabat rashaad. xabat rashaad iyada dhan waa nafaqo socoto, waa inaa cuntid hadaa heli kartid. calcium baa ku jira, nafaqo baa ku jirta, marka wejigana nafaqaysiinay. maxaa kusoo haray basuri kitaan. basuri kitaan waa miro aad u wanaagsan, nafaqo badan ayay leeyihiin oo video aan ka soo hadalnay ayaa jira faa'iidooyinkiisa. hadda wejiga maxay u sameynay jeel bay noqonaysaa. udgoonna waxaan way ka dhigaysaa. tan kaleeto iyada dhan jeel waaye. wejiga waxay kaaga dhigaysaa baby marka 3 wax la isku daro qurux cadaan wejigu ku noqona. waana wax natural. waxaa laga yaabaa xabad sawdada
kulayl bay leedahay oo wejiga qofkii xasaasiyad ka qaba inuu soo adkeysan karo waa iska daynay marka waad ka saaray hadaa xasaasiyad ku qabtid. okay maxaa ku soo haray waxaan kala ku darsanaynaa waxaan waa yogurt qaado weyn oo yogada ku daraya. yogurt qofka haduusan haysan muxuu sameynaa asxaabi yogurtka shardi maaha inaad ku darsatid waxaa ku daray bedelka yogurtka waxaad ku darsanaysaa caano ayaa dhigaysaa labeenta caanaha ayaad ku daraysaa qof walba wuu yaqaana caanaha marka labeentooda ayaa ku daraysaa oo waxay ku noqonay haddaadan xabad suude waxaan ka wada aad haysan basuuri kitaan ama si xabad rashaad iyo basuuri kitaan magacooda ingiriisi halkan aan kuugu qorayaa haddaadan haysan dhib ma lahan xabad suuda iyo caanaha labeentooda ama yogurtka iyo waxyaabaha kaleeto ayaa kaaga filan maasha allah. kareemkan waa kareem naturaal ah. maxaan kaloo ku dareynaa asxaabi kan asxaabi waxaa waaye waa vitamin E gisa ogtihiin jirka aad ayuu ugu wanaagsan yahay weliba wejiga nafaqo ayuu siiyaa waa 400 gram hadduu 400 gram yahay 2 xabaa ku daray hadduu 1000 gram yahayna 1 xabaa ku daray. okay saan wuu ilyahay way dhulku iga dhacay sorry halkaan ku saaraa saas wuu ilyahay asaga dhan saliid ayaa ku jirta kaamirada u soo dhaweynaa asaga dhan waa saliid 2 xabo ayaad moodaloolinaysaa 2 xabaa ku daray. okay wax kale aan ku darayno waxaa waaye kareemkii aad jeceshahay haddaa rabtid fasliin aad ku darsan kartaa kareemka fasliinka ama kan waa Johnson kareemkan oo kale hadda waxaa waa Johnson body care haddaa rabtid aniga waxaan ku darsanayaa waa khafiif adi ka haysatid glycerin ahaado kan kale ay kareem aad haysatid ini kareem aad haysatid ayaad in yar ku daraysaa haddaa rabtidna kuma daraysid oo waxaa ku darsan kartaa saliidda saytuunka ayada ayaa kaaga filan waxaasoo dhan. run ahaantii kareemkan saxaabi waa kareem naturaal ah waa waxaan soo tijaabiyey ani ilaahay dartiisa idin jeclahay waxaan jeclahay wax kasta inaad barataan oo aadna isticmaalin waxyaabaha kiimikaalka hadhow xanuuno xun baa laga qaadaa jirkaaga way kaa haleynayaan haarhaaruu yeelana laakiin waxyaabaha naturaalka haddaad marsatid jirkaaga qurux buu ahaana jirka beebigoo kale yeelana wejiga dhaldhalo asbuucii 3 jeer aa marsanaysaa maasha allah waxaa wejiga ku haynaysaa adi 15 daqiiqo 20 daqiiqo haddaa u adkeysan kartid saliid sawd xabata barakada waxay leedahay kulayl haddaadan haysanin mashiinka wax lagu shiito mooyaha ayaa ku tumanaysaa haddaad waxa kale haysan saliidda xabatil barakada ayaa ku darsanaysaa maasha allah aad u fiican yahay waan idinkula talinayaa waa wax aad u wanaagsan waa kareem cajiiba oo naturaal oo udgoon lagu yahay haddana jirka nafaqo ayuu ku gelinayaa. asxaabe videoga haddaad nagu cusub tahay videoga like dhahay haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh share ka sii all ka sii doora si ku soo gaaraan waxyaabaha faa'iidka badan aan soo dhigno si share garee si walaalka kale ugu baahan uga faa'iido. asxaabi waxaan idinka dalbanayaa walaalahayga qaaliga iyo asxaabtayda qaaligaaba videogan ugu yaraan 10,000 oo like inaad saartaan oo dadka kale sii gaaro aad sii share gareysaan ani dhiirigelin buu ii noqonayaa. videoga soo socda insha allah waxaan idin soo diyaarinayaa wax aad u wanaagsan oo u fiican dadka timaha ay ka cad yihiin oo ama ciro aw ku dhashay ha ahaado ama ciro ay da'du keentay ha ahaado ka baabi'inaya insha allah oo natural ah. asxaabi khayr baan idin rajeynayaa videoga like dhaha. assalaamu calaykum.